marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta oo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba. Mar labaad waxaan baaq u diranaa beelaha tirirtu ku dhex martay koonfurta Sool. waxaan dadweynaha reer Soomaaliland hadday guurti tahay, hadday xildhibaano tahay, hadday salaadiin tahay, cid walba ugu baaqanaa in arrintaasi laga gurmado oo aanay soo noqonin oo xal waara laga dhaliyo labada beelood ee walaalaha. iyagana waxaan ugu baaqanaa inay aqligooga si fiican u isticmaalaan oo ay diinta sida ayna tidhi ay ku dhaqmaan oo dagaal wiil baa ku dhintay wiil laguma helo. waxaan leenahay wixii dhacay wuu dhacay, intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacaana ilaahay caafimaad sariican ha siiyo. waxaan leenahay labada beeloodna ilaahay xaqa ha waafajiyo. laakiin waxa laga rabaa yar iyo weyn, rag iyo dumar, oqaal waxgarad inay muujiyaan dadaal dheeraada iyo garasho loo baahan yahay in dadku badbaadiyaan. waxa maanta xisbiga isku yimiday hoggaankiisa iyo fulintiisa waxa la isla soo qaaday arrimaha dalka taagan, gaar ahaan khudbadii cishadii dhaweyd oo madaxweynuhu akhriyay iyo hadalkii ka soo yeedhay xisbiga kulmiye maalintii shalay. bishii Maarij sanadkani xisbiga wadani wuxuu si cad warqad 14 beysha ugu gudbiyay madaxweynaha inayna waafaqsanayn doorasho dambe oo komishanka hadda jooga ay qabtaan. waxaanu ku baaqay go'aankii xisbigu ahaa in komishanka la kala diro, madaxweynahana arrintaasi ay xisbigu u gudbiyay. nasiib darro madaxweynuhu warqad dhowr baaragaraaf ah buu kaga soo jawaabay. jawaabtiisiina ummadda Soomaaliland way ka warhaysaa. waxaa ka soo wareegay muddo 7 bilood ah. maalin dhaweyd madaxweynuhu wuu hadlay, arrinta doorashadu ka hadlay iyo arrimo kaleba. doorashadii afka uu kala wareegayaa oo kuma dhawaaqin inay dib u dhacday, laakiin waxa muuqata warbixin buu bixiyay. warbixin inuu bixiyo ma ahayne waxa inuu go'aan cad aw sheego doorashadii inay qabsoomayso iyo inay qabsoomaynin. waxaa muuqata markaan eegno hadalkiisa cishey dhaweyto iyo hadalkii xisbiga kulmiye ay shalayto in doorashadii waqtigeedii aanay ku qabsoomaynin. marka hore waxaan cadaynaynaa ummadda Soomaaliland u sheegaynaa doorashadu inay qabsoonto madaxweynaha ayaa mas'uul ka ah, cid la wadaagasaana ma jirto. wixii ka yimaado doorashada dib u dhaceega isaga ayaa mas'uul ka ah. haddii xisbiga wadani oo mowqifkiisa cadeeyay, madaxweynuhu xaq u lahaa isagoo raacaya qodobka ku habboon inuu guddi u saaro wixii wadani ku soo cawday iyo dhaliilihii uu soo sheegay ee doorashadii. madaxweynuhu ma yeeline isaga markhaatiga u furay komishanka. taa dadweynaha u dhaafanaa arrintaasi xaq u leeyahay madaxweynuhu inuu komishanka u furo markhaatiga oo waliba uu yiraaho waa in lagu abaalmariyaa. haddii doorashadu ay ku xidhan tahay komishanka, haddii wadani oo kalsoonida kala noqday kulmiye hadduu wadani kala noqday kalsoonidii komishanka, madaxweynuhuna uu cadeeyay inaan doorasho la qaban karaynin haddaan 3 xisbi u dhannayn. haddii shalay kulmiye la kulmay guddida doorashooyinka, waan ognahay kharashka ku baxaya inta uu leeyahay intay sii joogaan. komishanku haddii doorashadii aan 3 xisbi wada gelin aan la qabanaynin, madaxweynuhuna uu sheegay komishanku inta ka hadhay waqtiga maxay qabanayaan, kharashka inta leeg maxaa loo gelayaa. soo ma aha komishanka in la kala diro. waa gar haddii juuri lagu saaro oo aad tiraahdo juurigaasi ama cidda garsoorka qaadaysa haddaad deedifayso oo aad tiraahdo ii geli maayaan islaam iyo adduunkaba, waa gar in la bedelo. waxaan leenahay komishanka sidaan hore u cadaynay mowqifkiisu waxa weeye komishanka madaxweyne kala dir, komishan cusubna hala magacaabo. waliba
commission loo siman yahay oo saddex xisbi u siman yihiin shalay markaa mucaaradka ahaa kulmiye wuxuu ku dacweeyay in commissionka madaxweynuhu shan soo magacaabaya ee xisbiyada kalena xabad soo magacaabayaan inaanu madaxweynaha saddex soo magacaabaya labada kalena guurtaa soo magacaabayso waa isla miduun xisbiyada kalena xabad soo magacaabayaan cadaalad darro weeye waxaan madaxweynaha u caddaynanayo ummadda Somaliland doorasho commissionka jooga qabanayo inaanu wadani ka qayb galaynin saan hore u caddaynay madaxweyne xisbiyada waa saddex xisbiya dalka jira adigu madaxweynuhu ummadda tahay wixii jira ee khilaafaada inaad u garnaqdo oo ummadda aad u garnaqdo weey haddaad laakiin la safato oo aad afkii xisbiga kulmiye ku hadasho mas'uuliyadii madaxweynenimada aaway waalidku ubadkiisa ka qaylada badan leh ka dagaalka badan leh ka fiican mid walba isaga u garnaqa oo u siman xisbiyada inaad u garnaqdo wixii kale dibay jirta wadankan inaad ka garnaqdo ayay tahay inaad cid la safato oo aad xisbigii la safato kulmiye waa kulmiye kaliya kuma dooranine ummadda Soomaaliland baa ku dooratay waxaan ku leenahay mas'uuliyadaadu ma aha inaad xisbiga la safato cid walba oo wadanka iyo xisbiyadaba waa inaad u garnaqdaa waxa muuqata oo aan afka laga dhowro aan ahayn ee xaqiiqda la sheega ah doorashadii dhici lahayd March too socota oo ay ka hadhay 5 bilood imika maanta way dhamaatay bishii October 5 bilood baa ka harsan doorashadii ma qabsoomayso way muuqataa madaxweyne mas'uuliyaddeeda adaa qaba commissionkaas doorasho qaban maayo wadana ka qayb gali maayo adiga qaba mas'uuliyaddaas haddii waxa danta qaranku dimuqraadiyaddu waxay ku dhisan tahay ee adduunka aan magac ugu yeelanay waxa weeyaan doorashooyinka waqtigoogii in la qabtaa way habboon tahay baarlamaanku intuu joogo waa la garanayaa guurtu intay joogto waa la garanayaa golihii deegaanka waqti dhaafaya doorashadu muhiimad weyn bay dalka u leedahay madaxweyne in waqtiga la lumiyo oo ay sii jiitamaa danta ummadda kuma jirto danta qaranku kuma jirto maalintii uu wadani soo gudbiyay go'aankiisana 7 bilood baa ka soo wareegtay hadalkaaga shalayna waxaan u aragnaa aad shayda way tidina in waqti dambe hadan la sii jiidayo commissionkuna ay sii joogayaan hawsha ay qabanayaan shalay kulmiye ay ku kulmeenna anagu garan mayno waxay qabanayaan haddii doorasho aanay qabanaynin oo aanu wadani galaynin waxay qabanayaan garan mayno mas'uuliyadda adaa qaba waxaan la ummadda u sheegaynaa dee madaxweyne talada adaa lagu doortay hase ahaatee inaad dhegaysato xisbiyada iyo cid kasta oo Soomaaliland oo tala keenta xaq baad u leedahay dhegayso haddaa kelidaa tiraahdo anaa go'aan gaaraya waxaan u malaynayaa reer la rarayo oo dee roobku marka meesha ka daa loo sahamiyay ayaaba geediga la eegaaye dal idil haddaad tiraahdo anuunbaa meeshaan doona u raraya saan goortaan doonana raraya meeshaan doonana u raraya taasi waxaan u malaynaynaa suurtagal noqonaynin haddii doorashadii dib u dhacdo oo ay muddo dhaafeen intaasoo sannadood haddii aan aragno inayna muuqanin in doorasho diyaar imiga kulmiye iyo madaxweynuhuba ay u yihiin mas'uuliyaddaasi wixii dhibta ka timaada waxa weeye xisbiyada kale ee mucaaradka iyo ummadda Soomaaliland eegan maysuna fadhiyi mayse wixii laga fursan waayo baa la yeelayaa waxaana muuqata oo lagama maarmaan noqon doonta in la isku yimaado oo tala guud oo tala qaran ummadda isku timaado oo la tashado oo go'aanka halkaa uu ka soo baxo wixii aan laga maarmaynin waayo dalku waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay hogaamin fiican hadaan laga rabaa waxaan ku leenahay ku soo noqo oo ka bax talada xisbiga kulmiye ka bax tala madaxweyne ku soo noqo go'aanku aduu kugu xidhan yahay commissionka iyo qaranka weyn commissionka ma aha in la doorashadii hore way dhamaatay waanu aqbalay kulmiye wadani wuu aqbalay hadal kama taagna laakiin commissionka doorashooyinka soo socda baan rabnaa inay si xalaal u dhacaan commission kale oo qabto taa weeyaan mowqifka iyagu waxaan leenahay madaxweyne dhegayso talada xisbiyada dhegayso talada dadka ku soo noqo miiska si fiican ugu soo noqo talada ku soo noqo shalay kulmiye wuxuu yidhi waa in dib la isugu soo wada hadalladii 2 week baa
laysfar fadhiyey fariinu bay keeneen qoladii kulmiya taymiga la isku yimaadaana waqti lumiso waxa ka soo kordhaya ma lehe go'aan adag madaxweyne qaado wixii aan laga fursanaynin yeel waxaan rajaynaynaa inaad si fiican ugu soo noqoto oo aad talada qaran intaan la isla gaadhin in doorashooyinkii waqtigoogii ay qabsoomaan ummadda Soomaaliyeed meelkii joogaan salaamiga ilaahay dalkayna nabad geliyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh